masaajidka Al-Rawda ee magaalada Buuhoodle oo dhismihiisu muddooyinkii dambe halkaasi ka soconayay ayaa waxa uu hadda soo gaaray heer gabagaba waxaana ka warbixiyay masaajidkan iyo xaaladihiisa Sheekh Maxamuud Yuusuf Dhuur oo kamid ah culimada gacanta ku haysa masaajidkani iyo waliba qaar kamid ah waxgaradka deegaanka waxayna ummadda islaamka ka dalbadeen in la is soo raaciyo inta yar ee ka harsan masaajidkani oo hadda maraya heer gabagaba waxa uu yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam man bana masjidan lillah bana Allahu lahu baytan fil janna qofkii masaajid ilaahay dartii u dhisa wax ku darsada taageera ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa waxaan walaalayaal idinku baaqaynaa muslimiinta na arkaysa ama maqlaysa meelaad joogtaan bacdaan iyo madow carabi iyo cajamiba beedka ilaahay ee muddada soo soconayay hadda qabyada wali siyaa in aad شهر رمضان بركيسان وليبا طبنكي دموسيه فضل بدنات كفايديستان qof walba waxaad awoodi kartaa aad soo gaarsiisid Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka yeelo kuwa guriga jannada uga dhisay kuwa hore u taageerana Ilaahay guriyahooda jannada ka yeelo kuwa hadda taageeri doonana Ilaahay guriyihiina jannada ka yeelo muslimiinta adduunka oo dhan ka codsanayna masjidkaas waa qabiyo xoolo badan baa u dhim waxaana jirta aad ogtihiin qofkii masaajid wax gashadaa inuusan weligiiba waayin aakhirana ugu daran inta adduunka lagu cunayo waxa ka daran aakhiroo lagu wada qatan yahay wixii aad gashatana aakhire aad heli waa waqaf waxa sadaqada jaariga aan weeyay sida darteed waxaan codsanaynaa ama dibadda ha joogo ama gudaha ha joogo qof kasta oo islaam wax kari kara oo masaajidka qabyada wax ku darsan karaaba inuu nagala qayb galo oo ka soo qayb galo oo ku darsado saasaan ku guulaabinayna kana barayna waana darkaysaan masaajidkan oo 3 biyaana ayaa waxa uu hadda soo gaaray heer gabagaba waxaana ummadda islaamka laga dalbanayaa inta karaankooda inay ka qayb qaataan dhamaystirka masaajidkani Cabdi Casiis Aadan Jaamac Samsa TV magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn